Soomaalida waddanka Finland ku nool intii taqaana iskuma sheegiyo laakiin intii aan aqoon waxaan 16kii sane la soo dhaafay aan u shaqeynayay marna aan la shaqeynayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka Finland ku nool garomadan aan ka hadlayo intooda badan waxaa iska leh Helsinki Kaupunki waxa lacagta ka dhigtayna waa Helsinki Kaupunki garomada private-ka loo leeyahay lacagta hadda aan sheegay ka badan weeyaan 3 sano la soo dhaafay waddankan waliba magaalada Helsinki waxa ka dhacay dhalinyaradeena in gaabis saa'ida oo jiro ayna dhalinyaradii mataqaana awal garomada ku dhuuban jiray maanta intoodii badnayd ay taagan yihiin jidadka ama xaafadaha ama suuqyada magaalada Helsinki insha Allah waxaan rabaa arrimahaas taagooyinka ee ilaa hadda cid ka hadlaysa aysan jirin 3 sano la soo dhaafay inaan wax ka qabto garomadaas dhalinyarada lacagta looga dhigayna inaan mataqaana lacag laan aan uga dhigo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كليبكم waxaan ugu talagalay qorshayaasha ee kala lambar 1 ugu jiro oo wax ka qaban doono hadii aad doorataan insha Allah dhalinyarada maxaan qorshahay koowaad aan uga dhigay dhalinyarada waddanka Finland ku nool khaasatan magaalada Helsinki dhalinyaradan ka hadlaya waa ku weyna Soomaalida waddanka Finland ku nool intii taqaana iskuma sheegiyo laakiin intii aan aqoon waxaan 16kii sane la soo dhaafay aan u shaqeynayay marna aan la shaqeynayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka Finland ku nool sida awadeed hadafkayga koowaad waxaan uga dhigtay dhalinyarada waxaan la socdaa meesha ka nugul yihiin waxaan la socdaa baahidooda waxaan la socdaa waxay u baahan yihiin dhalinyarada wax kasto ay serviyo magaalada Helsinki ay ka heli jireen waxa looga dhigay lacag intiina la socota arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba 90 ka badan waxay ciyaaraan kubad oo kubad ayay ku meeltaashaan garoomada lacag la'aanta ahaa ee lagu soo qaban jiray ala ikaynanka waxa laga dhigay lacag badan oo aysan waliba bixin karin iska daawa garoomada qaar hadda waxay marayaan 500 qaarkoodna 800 ay marayaan marka insha Allah waxaan rabaa arrimahaas taagooyinka ee ilaa hadda cid ka hadlaysa aysan jirin 3 sano la soo dhaafay inaan wax ka qabto garoomada marka dhibaatada meesha ka jirta waxay tahay waxaa dhacday in dhalinyarada Soomaaliyeed ee garoomada iska aadi jiray ee lacag la'aanta ku aadi jiray in markii la yiraahdo garoomada la soo qabto ururada soo qabtaan garoomada la yiraahdo waa lacag qof kasta ha bixiyo madaxdu ma leynaysa dhalinyarada inay ama lacagta iska bixin karaan ama qaar waxa jira dhalinyarada soo raaci jiray oo aan niyad aan u hayn kubadani waxa inay ciyaaraan laakiin meesha iska imin jiray laakiin kuwii niyadda u hayay laftigoodii waxay noqotay intoodii badnayd inay jidadka istaagaan oo mataqaana ay ku dhacdo garoom la'aan ninkii awal mataqaana dhalinyarada soo raaci jiray warkiisu kaas ma yaalaba jidkiisu mataqaana hore u sii galay marka 3 sano la soo dhaafay waddankan waliba magaalada Helsinki waxa ka dhacay dhalinyaradeena in gaabis saa'ida oo jiro ayna dhalinyaradii mataqaana awal garoomada ku dhuuban jiray maanta intoodii badnayd ay taagan yihiin jidadka ama xaafadaha ama suuqyada magaalada Helsinki insha Allah arrinkaas waxaan rabaa in culayska ugu weyn aan saaro oo dhalinyaradaas sidaan mataqaana garoomada dib ay ugu heli lahaayeen aan ka shaqeeyo insha Allah waxaan iga codsanaa inaad igu hiilisiin arrinkaas aan wado hadii rabiidno aan uga dhigo oo ay sidii awal ay u heli jireen 3 sano ka hor garoomadii ala ikaynanka lagu soo qaban jiray lacag la'aanta ahaa in lacag la'aan sideedii lagu soo celiyo intooda badan waxaa iska leh Helsinki Kaupunki waxa lacagta ka dhigtayna waa Helsinki Kaupunki garoomada private-ka loo leeyahay lacagta hadda aan sheegay ka badan weeyaan garoomada saa la socono daad way kala jirtaa garoomada awal way xaan jireen ala ikaynanka lacag la'aan haddana waxa laga dhigay lacag saayida garoomada kale 18 sano wixii ka bilowday 28 sanana lacag saayid oo tii ka sii laabanta laga sii dhigay marka insha Allah service-ka koowaad oo aan rabo dhalinyarada in uu qabto wuxuu noqon doonaa in garoomadaas lacag la'aanta ahaan jiray inaan ku soo celiyo lacag la'aan oo sidoo hore ku soo celiyo hadii rabiidno